kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta ugu dooroon waxaa ka mid ah awoodda taliyaasha saldhigyada booliiska gobolka Banaadir oo hoos loo dhigay maxaa farqiga u dhaxeeya markii farmaajo uu ra'iisul wasaaraha iyo hadda uu yahay madaxweynaha Soomaaliya farmaajo oo ka laabanaya aqoonsi dawladda Shariif ay siisay dalka Kosovo qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal balse aan ku bilaabo magaalada Muqdisho baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in si weyn hoos loo dhigay awoodda taliyaasha ciidamada booliiska Soomaaliya ee saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir kuwaasi oo ku magacaaban dhowr bilood taliyaasha qaarkood oo la hadlay warbaahinta waxuu mid kasta u sheegay ama u cadeeyay inuusan lahayn awood wax uu ku maamulo sidii markii hore ay ahayd oo ku maamuli jireen degmooyinkooda sidoo kalena ay ku amri jireen ciidamada ka howlgala degmada waxaa laga joojiyay dhammaan kormeerka baraha kontarool ee degmooyinkaas ku yaala sidoo kale waxaa laga joojiyay inay soo daayaan ama ay soo damintaan dadka ay yaqaanaan baraha kontarool ee degmooyinka ama ay maamulaan kuwaasi oo markii hore ay sameyn jireen sidoo kale waxaa lagu wargeliyay inaysan maamulin isla markaana aysan amar siin karin ciidamada ku sugan baraha kontarool ee degmooyinka taliyaashan ayaa maamulo kaliya ciidamada ku sugan xarumaha degmooyinka iyo saldhigga booliiska ee degmada halka markii hore ay maamuli jireen dhammaan degmada gudaheeda iyo ciidamada ku sugan ciidamada booliiska ee ku sugan baraha kontarool ayaa waxay amar ka qaataan taliyaasha rugaha oo go'aan ka gaara xaalad kasta isla markaana waxay amraan dhowr iyo 10 askari wixii ka dheeraadana waxay la aadaan oo si toos ah ula macaamilaan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Banaadir lama oga wixii sababay arrintan ma jirto wax faahfaahin oo ay bixiyeen balse dhalinyaradan ayaa dhowaan loo magacaabay xilka ay hayaan waxayna intooda badan ahaayeen taliyaashii ciidamada nisa ee degmooyinka gobolka Banaadir guud ahaan shacabka Soomaaliyeed hore umaysan aqoon madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo koor inta aan loo magacaabin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 14 Oktoobar sanadkii 2010 go'aankii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana shacabka Soomaaliyeed baray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed farmaajo muddo 6 bilood ayuu kasbaday shacabka Soomaaliyeed waxaana markaasi lagu jeclaaday shaqo go'aan qaadasho iyo wadaniyad isagoo loo arkay inuu meel sare ka keenay ciidamada Soomaaliya oo ku jira xaaladii ugu adkayd burburkii kadib muddo kooban ayuu yeeshay saameyn ku dheehan wadaniyad iyo rajo ummadda Soomaaliyeed oo xor ah markii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya noqday kadibna wuxuu la shaqeyn waayay baarlamaanka Soomaaliya taas oo sababtay inuu iscasilo kadib heshiis lagu gaaray dalka Uganda iscasilaada farmaajo ayaa aad loogu banaabaxay waxaana sababtay heer habeen madow haweeney caruur ay ka dalbadeen inuu markab saaro oo ay u raacaan halkii uu ka yimid ee Mareykanka laakiin maanta ma aan farmaajihii markaas la jeclaa sida ay qabaan dad badan dagaal dheer kadib wuxuu noqday madaxweynaha Soomaaliya bilowgii sanadkii 2017 wuxuuna ku noqday codka baarlamaanka ha yeeshee waxaa sabab u ahaa kacdoonka dadweynaha iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo ay u arkeen inuu yahay hogaamiyaha kaliya ee samata bixin kara Soomaaliya ra'iisul ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Serbia ayaa arbacadii safar aan la shaacin ku tagay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sida ay sheegtay warbaahinta dalka Serbia wasiirka markuu uu tagay magaalada Muqdisho wuxuu wada hadal laba geesood la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Caawad sida ay qortay warbaahinta dalkaasi kulankaasi ayaa looga hadlay soo celinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhow oo yeeshaan labada dal ee Soomaaliya iyo Serbia sida laga soo xigtay wasiirkaasi madaxweyne Farmaajo ayaa xaqiijiyay in Soomaaliya aysan marnaba taageeri doonin dhaqdhaqaaq kasta oo ku saabsan gooni isutaaga iyo aqoonsi raadis ka hor imaanaya xeerka caalamiga ah madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka laaban doonto go'aankii xukuumadda Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay dal madax banaan ugu aqoonsatay dalka Kosovo ee sanadkii 2010 dalka Kosovo waa wadan yar oo ka go'ay dalka Serbia 17 Febraayo 2008 kadib halgan dheer oo ay xorriyadda u galeen dadka gobolkaasi oo 90% ay yihiin muslimiin dawladda Mareykanka iyo in ka badan 7 wadan oo kale ayaa waqtigaasi dal madax banaan u aqoonsaday Kosovo
balse waxaa weli aqoonsan Ruushka iyo dalal kale taasi oo ka hortaagan Kosovo inay xubin ka noqoto qaramada midoobay. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media intaan warkan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.